33 sano kadib dufcaddii koowaad ayaa si rasmi ah uga qalin bedelatay dugsiga caanka ah ee farsamada gacanta ee loo yaqaan Burco Technical Institute ee magaalada Burco. xirfadlayaashan qalin bedeshay oo dhammaa 38 arday ayaa waxa ay ka baxeen saddexda qaybood ee kala ah dabka ama leydhka, ICT-ga iyo qaybta construction-ka, kuwaas oo baranayay muddo 4 sano ah. munaasibadan oo hab agaasinkeeda si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer, guddoonka waxbarashada ee gobolka, maareeyaha wakaalada biyaha Burco, saraakiisha ciidamada, mas'uuliyiin ka socotay shirkadaha Telesom iyo Heeko, culimo awdiin, madax dhaqameed, maamulka, guddida, macallimiinta iyo ardayda dugsiga farsamada gacanta ee Burco, iyo sida oo kale mudan iyo marti sharaf kale oo lagu soo maamuusay munaasibadan. ugu horeyn waxa ka waramay marxaladihii uu soo maray dugsiga farsamada gacanta ee Burco gudoomiyaha dugsiga farsamada gacanta ee Burco Fuaad Aadan Cabdilaahi. dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisa dugsiga farsamada gacanta ee Burco Technical Institute ama dugsiga farsamada gacanta ee Burco berigii hore dhammaan dadka gobolada Soomaaliya ka yimaada u soo tirtami jireen, maantana uu dib loo yeelay dib uga qalin jabiyeen ardaydii dugsiga farsamada gacanta ee Burco. waxa ka qalin jabiyay 3 section ama 3 qaybood ayaa ka qalin jabiyay. saddexda qaybood waxay dhiganayeen muddo 4 sano ah, waxaanay kala yihiin saddexda qaybood ardayda electricity-ga, ICT-ga iyo construction-ka. ardayda ICT-ga waxa ka qalin jabiyay 15 arday oo 2 inan ay ku jiraan, inta kalena ay yihiin hablo. ardayda electricity-ga waxa ka qalin jabiyay 14 inan, ardayda construction-kana waxa ka qalin jabiyay 9 inan. waxa ilaahay mahadiya iskuulku oo uu hadda awooday in gobolada ku xiga gobolka Togdheer uu section iska furo ama waaxo uu ka furo si ay gobolada bari u gaadho xirfadu. waxa hadda aanu furaynaa barito gobolka Saraare ee Caynabo aanu ka furaynaa section kale oo uu leeyahay Burco Technical Institute, qalabkiisina la rarayo. waxa noogu xiga iyaguna section-ka kale noogu xiga inaanu oodweyna ka furno haddii Ilaahay dhaahdo. hanaanka waxbarashada waxaan doonaynaa inaan ku soo kordhino qaybta technical-ka ama vocational-ka oo ah lafdhabarta horumarka dhaqaale iyo isbeddelka qaranka lagu sameyn karayo. inagoo taa dareensan waxaan go'aansanay iskuulkii Burco Technical Institute inaanu sidiisii hore iyo si ka qurux badanba aanu dib ugu soo celino. geestooda waxa iyaguna madasha ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Sheekh Cali Mahdi oo ka socday shirkadda Telesom iyo Cali Cige oo ah madaxa iibka ee shirkadda leydhka ee Heeko, kuwaasi oo mid kasta gaarkiisa u ballan qaaday inay gacan ka geysanayaan tayaynta dugsiga farsamada gacanta ee Burco iyo shaqaalaysiinta ardaydan ka baxday dugsiga. waxaan u hambalyeeynayaa departmentada kala duwan ee ardayda ah ee ka qalin jabisay dugsiga farsamada gacanta Burco. waxaan idin ballan qaadayaa ardayda qaybta electricity-ga wixii suuragal ah inaan u ballan qaadayno inay ardaydaasi ka shaqaalowdo shirkadda leydhka ee Heeko. wax badan baa maanta laga qabtay waana dadaaleen. annana insha allahu tacaala dee qayb aanu ka nahay dadka wax laga sugayo doonay mas'uuliyiintii shirkadda insha allahu tacaala. kobcinta iskuulkan qayb aanu ka qaadanayna. barnaamijka xogmaan xidig 403 afargees u galayo eedinayno iyo ducada ardayda qalinka jabisay ladkii ugu horeysa tihiin ragii halkan soo maray ee ka baxay taariikhdooda dib ugu noqdo oo tusaale ka dhigtay insha Allah tacaala. waxaan idila garab gelinaa inaan shaqo abuurka idinka shaqeyno, inaan suuqiyo idinka isku xidhno, inaan shirkadaha idinku kormeerno sidii aad suuqa u gali lahaydeen. xaliyada qof faashtabaal xaaba ma waayo, waa cilmi aad u qiimo badan qayb kasto ay tahay. waxaan leenahay ka faa'iideysta oo dadka uga faa'iideeya oo cilmigii maydu dhamaynina maanta bilow tihiine si barbaariya. ugu dambeyn waxa madasha qalin bedelashada dufcadda koowaad ee dugsiga farsamada gacanta ee Burco ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd iyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe, kuwaasi oo bogaadiyay ardaydan qalin bedelatay xusayna ahmiyadda ballaaran ee xirfaduhu u leeyihiin dalka iyo dadka.
ayaa laga baqayay in dugsigan la bilaabo laakiin waxa markii dambe qaranku go'aansaday iyadoo wasaaradda waxbarashadu hormuud ka tahay in isku tashi lagu bilaabo kii baana runtii maanta ka midho dhaliseen oo soo saaray 38 arday ee ku qalabaysan xirfadda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay keentaan sifiyadin wixina keentaan shirkadaha waaweyn ee Telesom ka mid tahay ee Daabjil ka mid tahay ee Heeka ka mid tahay iyo kuwa kale ayana waxaanu halkan ka codsanaynaa inay waxay qaadanayaan u horeysiyaan ardayda ugu dambeyn waxa shahaadooyin la guddoonsiiyay ardayda ka baxday qaybaha dugsiga farsamada gacanta ee Burco iyo sida oo kale maamulka iyo macallimiinta dugsiga oo lagu bogaadiyay doorka koruka ee ay ka geysteen dugsiga farsamada gacanta ee Burco waa Fahmi Kaysa Xirsi Bulsha TV Burco